أما أنا خانام بيانا نقول عافية مسامح هورتيجي نكاي الدنيا آخر وأنا عافية لكن fanaanada ay labada fanaan iska dhaleen oo Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaa cafis ka dhan bisha Ramadaan u fidisay dhamaanba dadka ay xurgufta soo kala dhex martay isla dadkaasina cafis weydiisatay hadaba daawadayaal waxaan isoo gudbin doonaa dadkaasi cid ay yihiin hadaba inta ayna barnaamijka dhameystiran u guda galin halkan waa Maaraya TV hadii aad nagu cusubtay fadlan nagu soo biir oo taaba calaamada subscribe-ka gambeelkana furo sidii ay muuqaalada aan maalin kasta kan soo galnaa ay ku soo gaadhaan والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا fanaanada reer Hargeysa ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere ayaa bartiida Snapchat-ka soo dhigtay muuqaal cafis ku weydiisanayso dhamaanba dadka ay dariiqda soo kala dhex martay dadkaasina waxaa kamid ah birmaantii la durmiyay ee Khadra Cabdi Silimo sidoo kale Khadra Cabdi Silimo iyo Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo ay ka dhaxaysay dariiq soo jireen hadaba dariiqtaasi colaada dhex martay labada fanaan waxa ka dambeeyay mar ay soo kala dhex gashay Hodan Cabdiraxmaan Dheere Khadra Cabdi Silimo iyo saygeeda Mursal Muuse oo ay kala wareegtay saygeeda Khadra Cabdi Silimo hadaba sidoo kale fanaanka Mursal Muuse Umar ayaa isaguna muuqaalo dhigay daarta ku kiciya Khadra Cabdi Silimo la soo sameyn jiray fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere hadaba daawadayaal shacabka Soomaalida ama bulshada Soomaalida ayaa taageeri jiray garabna siin jiray fanaanada Khadra Cabdi Silimo halkaasi oo ay mar walba gacan qaban jiray fanaanada Khadra Cabdi Silimo hadaba hadaan nahay bahda Maaraya TV oo isku duuban waxa baa loo leenahay intii colaad isku haysa intii uurka isku haysan waxa leenahay si saamax walaalayaal dardaaran yar baan rabaa inaan dadka bini'aadamka u sheego iyo asxaabta markaad caafimaadka hayso ilaahay ku xamdina waxaad tiraa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay caafimaadkiisa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri ummadan aniga abuurtay khalad iyo sax waxa ay sameeyaan aniga judge gareyn doona maalinta yawmal qiyaamah nin walba iyo qof walba oo bini'aadana maalinta yawmal qiyaamah ayaa la weydiinayaa khalad iyo saxiisa ma fahantay ummadayda baa lagu yiri sax iyo khalad ama wax wanaagsan u sheeg yaa وفر أما كأمو مركز عافمات كقبته وناك بدي محايلة دقيقة سكنير وحنو كل سوق بونادو أيادو غاني سوا هذا اللي دمانتي معناها ما هذا الكي قنانت كي صحيح أما قف بنا آذن كاوح خير لو شيك أما قف بنا آذن كامركا الدليل وهي صدر ليش وشيك وحتى لو ولا لحاسي حسن كو دليلي قفك أدور أقول هيسك عاين ما فهمت أدور رنتو أغين ابن آذن كهالين إلهي سبحانه وتعالى انت أدقوا ابن آذن كيسكو مقانت إلهي نادوكو مقيه إلهي وحكولي أدوما هيجي أمان سيانا بورتي أديك هلقا أمان حلبولي إلهي سبحانه وتعالى مركا تددك أمان سيو إذا إلهي إساقنا الدنيا ذا كوركيدا يا الله وتسي علاموين مركا علاموين كو إن محل هذا كو عبارة قاعدة سبحان الله إلهي وحن كبري كو يسعفية بشر رمضان وكلية تماهني مرول بيسعفية احترامين إلهي نغير البلاد وحال يدي إما كشركة نقيب البوكة كوبين حي مفراء مع الرباء ما إنده مد أن ما أنت يوم القيامة هو مرخاتي فرين ملك مد والبابا وحياة كوفا الشيء كوسا مايسي مرخاتي كوفا فرين دون تاورن دون تاها عرب كاوي كو هذا الشو أما وكو هذا يو وحاسو خلطن بابن آدم كذا الشيء قعنتا صورنيس فرتا حورنيس أبالا لوك تلماميس حورنيس الله أنا بفرتا أنا بيقول تلمانتيو نفتني أنا يقول تلمانتيو واحد تلماميس قفك ابن آدم كاتون كإلهي مركا ولا لهاي يدنبيغاغي haddaad ku darsato dambi islaameed ka war ibna aadan dambigiisa haddaad ku darsato ka war iyo xantiisa iyo xumihiisa iyo falkiisa iyo ka sheekayntiisa iyo been ka sheegidiisa iyo run ka sheegidiisa subxaan allah dad baa u qaatay waxaan ka hadlayay in aan
aan dad u gaar leeyahay